siyaasadeed uu ka dhex oognaa maamulka Galmudug gaar ahaan madaxweyne Xaaf iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo isku dhinaca khilaafka cusub ayaa qayb ka ah muran siyaasadeed oo xoogan oo u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Galmudug ayaa muddadii ay dhisnayd ee 3 sano ahayd waxaa ragaadiyey khilaafyo dib u dhac ku keenay dowlad goboleedka Galmudug. wariyaha VOA-da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ku eegaya. isjiidjiidka siyaasadeed ee ka dhex jira madaxda maamulka Galmudug waa mid muddo soo jiitamayay waxaana in muddo ah hoggaanka ka dhex oognaa khilaaf kala qaybiyay xubnaha baarlamaanka iyadoo sanadkii hore uu jiray khilaaf sababay kala qaybsanaan madaxda maamulka iyo xildhibaanada oo kolkii dambe isu bedelay mooshin xilka qaadis ay xildhibaanadii la kala saftay ay ku sameeyeen madaxdii ishaysatay ha yeeshee dowladda dhexe oo wada xaajoodkooda guda gashay ayaa isu soo dhaweysay dhinacyadii ishayay inkastoo waqti kooban lagu caanamaalay isu soo dhaweyntii dowladda dhexe ay u samaysay dhinacyadii Galmudug ee ishayay haddana ma noqon mid sii shaqeeya waxaana deegaanada Galmudug mar kale dib ugu onkaday khilaaf ka dhex jira madaxda maamulka. Maxamed Dhagacade waa aqoon-yahan ka faallooda siyaasadda Galmudug waxa uu qabaa in khilaafka uu salka ku hayo hoggaanka sare ee Galmudug khilaafaadka sababaha keena falalaabashadu waxay tahay marka koowaad waxaa jira dahaysi oo hogaamiyaasha Galmudug inta badan dowladda gaarka ay ka fiiriyaan arrimaha midda labaadna waxay tahay in maamulka xeerkiisa iyo dhaqankii iyo xeerka ama maxaa la sharciyada u yaala aan si rasmi ah maaragtay loogu dhaqmin oo hogaamiye kasta maaragtay intii uu doono uu ka qaato waxaa kaloo jira faragelin oo meelo badan ka imaanaysa sida dowladda federaalka iyo siyaasado kaloo dibadda marka waxyaalahaas oo dhan marka la isku daro iyo tayada hogaamiyaasha liidata oo hogaamiyaasha tayadooduna aad u liidata oo dadka la dooranayo inta badan lacag ayaa lagu doortaa laguma doorto waxqabadkooda iyo marka iyadoo loo jeedinaysa waxba qaban karina inta badan la doortaa eedaasna waxaa iskale baarlamaanka Galmudug hadda waxaan dareemi karnaa khilaafka inuu aad usoo laalaabtay sanadka hore September khilaaf ayaa jiray sanadkan waan ujeednaa inaa khilaaf kala jira marka waxaa muuqata in maaragtay Galmudug ay u baahan tahay isbedel hoggaanka ah iyo in maaragtay sharciyada lagu dhaqmo. Macallin Sugaal Cali Guuleed waxa uu ka mid yahay qaybaha bulshada Galmudug waxa uu sheegayaa in bulshada rayidka ay kaalin ku leeyihiin sidii xal looga gaari lahaa khilaafka soo laalaabtay ee ka dhex jira madaxda maamulkooda. bulshada Galmudug door weyn oo shariifa bay ku leeyihiin arrintan doorkoodu wuxuu yahay in dadka maamulka haya ama madaxweynaha ku-xigeenkiisa guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada golaha wasiirada haddii ay xallin waayaan arrinkaas doorka u furan wuxuu yahay awal horta in odayaasha loo soo laabto aqoon-yahankana loo soo laabto waa dhanka maamulka markaasna dhexdooda wax laga halisto marka bulshadana waxaa looga baahan yahay inay hawshaas u kacaan sidii waxaas maalmoba soo laabta loo damin lahaana inta shir la qabto oo la isku yimaado inta kale ka goodo oo reer Galmudug in waxa weeye wax meel looga soo haro oo aan isqabsiga mar walba soo laabtay mar usoo laabteen. Xuseen Cali Xasan ayaa qaba in bulshada ay ka tashadaan khilaafka soo laalaabtay waxaa u badan bulshada la doontaas Galmudug waa gobol ballaaran laba gobol oo ballaaran oo dadkiisuna ballaaran yahay waaye bulshadaasuna isku timaado go'aan la yaqaano ee ka qaadato soo qabsiga soo laabtay ayaa u furan bulshadii dhan ayaa ka tashanaysa markaasay kashi wadan qaybo kamid ah ku fadhimayna madax maalin walba iska qarsanaysa dib u dhacna lagu ridinayso dowladii kale maamul goboleedkii kale hore u socdaan rabnaano. Aqoon-yahan Dhagacade ayaa tilmaamaya in isqabqabsiga siyaasadeed uu keenay dib u dhac bulsho. Galmudug waxaa la aasaasay bartamihii 2015 waxay higsanaysay muddo kooban in ugu yaraan waxyaalo asaasiya laga shaqeeyo oo ay kamid ahayd in beelaha dib u heshiisiinteeda la ballaariyo in maaragtay mashaariic ay ugu horeyso dekeda Hobyo si bilaaba loo sii sameeyo in maaragtay dadka lagala qayb qaato shaqaalaysiinta dhalinyarada iyo mashaariicda kale horumarinta waxbarashada iyo la qabto iyo dib u heshiisiinta ay ku jirto arrinta ahlu sunna in la qabto marka waxaad muuqata sidoo marka waxay filaysay
xilligan oo kale inay maaragtay shaqo badan la qabto baarlamaanka waxa muuqata inuusan sharciyad badan iyo wax badan iyo fadhiyo badan uusan yeelan oo khilaaf radaadiyey waxaana la filayay marka wax badana laga filayay laakiin hadda waxaa muuqata in maaragtay dib u dhac badan uu jiro rajada bulshaduna aada u yar tahay in madaxdu ay wax qabato arrimahaas oo dhan marka laisku soo duubo waxaa muuqata galmudug meeshii laga filayey markii la dooranayo ama la sameynayo 2015 in 4 sano ka bacdi ama 3 sano ka bacdi meeshii joogi karto inay aada uga hooseyso meeshii laga rabay maamulka galmudug oo dhisan ku dhawaad muddo 3 sano ah waxaa soo maray marxalado khilaaf oo ragaadiyay hanaankii maamulka looga fadhiyay kadib markii madaxweynihii ugu horeeyay galmudug cabdikariin xuseen guuleed uu ku baxay mooshin ay xilligaa ka keeneen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug hase ahaatee waxaa mar kale soo ifbaxay khilaaf u dhaxeeya madaxweyne xaaf iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa balse waxaa lagu guuleystay in xal laga gaaro inkastoo xildhibaanada baarlamaanka ay haatan wadaan mooshin ay kalsoonida kala laabanayaan guddoonka baarlamaanka galmudug waxaana sidoo kale meesha ka maqan madaxweyne ku-xigeenka oo qayb ka ah khilaafka haatan ka dhex jira madaxda maamulka